waa dal laga helo dhammaan qowmiyadaha caalamka sida Afrikaanka, Aasiyaanka, Yurubiyaanka iyo Latin Americanka. qof walba wuxuu dalka yimaadaa isagoo wata riyo waxaanu helaa fursad uu ku rumeeyo. waa dalka saddexaad ee ugu ballaaran dunida, haddana ah kan ugu xooga badan marka la eego dhaqaale ahaan, militari ahaan iyo tiknoolajiyad ahaanba. dalkani waa mid leh dhaqaalaha ugu weyn dunida. GDP-giisu wuxuu gaarayaa $25 trilyan oo dollar. shirkadihiisu waa kuwa caalamka hogaamiya. waa dal leh awood militari oo gaarsiisan meel kasta oo dunida ah. maraakiibtiisa dagaalka, diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo gantaalihiisa nukliyeerku waxay gaari karaan daqiiqado gudahood meel kastoo caalam ka mid ah. tiknoolajiyad ahaan dalkani waa hormuudka Silicon Valley, waa hal abuurka maskaxda caalamka. halka sharci ahaan uu yahay waddan leh nidaam dastuuri ah oo qoto dheer, kaasoo qof kasta siinaya xuquuq dastuuri ah, ha ahaado muwaadin ama qof sharci raadinaya. muddo 80 sano ka hor ah ayuu Mareykanku noqday dalka dunida ugu dhaqaalaha badan. xilligaa tirada dadkiisu waxay ahaayeen 106 milyan, halka maanta ay ka yihiin 328 milyan oo qof. dhaqaalaha Mareykanku weli waa kan ugu xoogan dunida, waxa uu gaarayaa 22 trilyan, mana jiro dal dhaqaale ahaan ku soo dhow 4 meeloodoo meel dhaqaalaha dunida ayuu haysto. sidoo kale waa dalka alaabta ugu badan dibadda kala soo dega, ahna kan labaad ee alaabta u badan dhoofiya. tirada dadyowga dunida Mareykanku 4% ayuu ka yahay, haddana waxa uu dalkaasi haystaa hantida ugu badan ee taalla dunida. dal 9% kaydka hantiyeed ee dunida yaalla waxa uu yaallaa Mareykanka. waxaa ku nool 9 milyan oo qof oo isugu jira dad aan ku dhalan Mareykanka oo soo galooti ah iyo carruurtii ay dhaleen dadkaasi. waa dalka muhaajiriinta ugu badan ku nool yihiin dunida. 19 ilbiriqsi ee kasta qof soo galooti ah baa soo gala dalkaas. 3% dadka ku nool waddanku waa caddaan ku dhowda 100 sano ka hor ka soo haajiray Yurub, kuwaas oo sameeyey maamulka hadda jira. Mareykanku maanta waxa uu hogaaminayaa ganacsiga, dhaqaalaha, aqoonta, cilmi baarista, maalgashiga, siyaasadda, ciidamada, wax soo saarka iyo dalxiiska. waa dalka saddexaad ee dalxiisayaasha ugu badan booqdaan dunida, waana dalka saddexaad ee shidaalka ugu badan soo saara caalamka, ahna kan koowaad ee shidaalka ugu badan iibsada. waa dal aad u baaxad weyn oo lagu tilmaamay inuu yahay kan afraad ee caalamka ugu weyn. in ku dhow 20,000 oo madaar ayaa ku yaalla gudaha Mareykanka, waana dal kale madaarada ugu badan. sidoo kale madaarka ugu mashquulka badan dunida ayaa dhaca madaarkaas oo ah Atlanta International Airport oo ku yaalla magaalada Atlanta ee gobolka Georgia. madaarkan ayaa ku guuleystay inuu noqdo kan ugu mashquulka badan sanad kasta marka loo eego tirada rakaabka ee ka soo dega kana dhoofa, gaar ahaan xagga tirada duulimaadyada gudaha ee uu adeego sanadkii. Mareykanku waa dal astaan u ah hal abuurka iyo dahaqaadidda. waxyaabaha uu dalkaasi ikhtiraacay waxaa ka mid ah diyaaradaha, telefoonada, kombiyuutarada, laambadaha, internetka iyo waxyaabo kale oo badan. waa dalkii ugu horreeyey ee duulimaad diyaaradeed sameeya. maanta shirkadaha rakaabka ee ugu badan qaada dunida waa Mareykan. sidoo kale Mareykanku waa dal horumar ballaaran ka sameeyey sayniska iyo caafimaadka. tartanka hawada sare waa dalkii ugu horreeyey ahna kan qura ee dad dalkiisa ka soo jeeda ay dayaxa ku dul degeen sida ay sheegaan. 12 qof ee taariikhda u diiwaan gashay inay dayaxa cagta dhigeen dhammaantood waa Mareykan. ganacsiga marka la eego labada suuq ee sarifka ugu weyn dunida labaduba waa Mareykan. 10 shirkadood ee ugu qiimaha sareeya dunida 8 ka mid waa Mareykan. 100 shirkadood ee ugu dakhliga sareeya dunida 54 ka mid waa Mareykan. shirkadda shaqaalaha ugu badan dunida shaqaaleysiisay waa Mareykan. marka waxbarashada la eego 10 jaamacadood ee ugu horreeyay dunida 8 ka mid waa Mareykan. 25 jaamacadood ee ugu horreeya 18 ka mid waa Mareykan. jaamacadda ugu horreysa dunida waa jaamacad Mareykan. waa dalka martigeliya ardayda ugu badan ee ajaanib ah ee dal aankooda ah in waxbarasho doon. dhanka ciidamada waa dalka loo arko kan ugu ciidamada xooggan dunida,
waa dalka qura ee haysta in ka badan 10 markab oo diyaaradaha xambaara. dalalka kale ee haysta dhammaantood haddii la isu geeyo isaga ayaa ka badan. diyaaradaha dagaalka ee Mareykanku 13,000 ayay kor u dhaafayaan. dalalka ku soo xiga tir ahaan isku darkooda isaga ayaa ka badan. sidoo kale in ka badan 7,000 oo madax nuclear ah ayuu haysta dalkan. waa dalka ku bixiya ciidamadiisa kharashka ugu badan. 10ka dal ee ku soo xiga isku darka dhaqaale ee ku bixiyaan ciidankooda waxa ka badan miisaaniyadda uu Mareykanku ku bixiyo ciidamadiisa. miisaaniyaddaas oo dhan 800 bilyan ilaa 900 bilyan. waa lacag ka badan miisaaniyadda 54 waddan ee Afrikaanka ah. Mareykanku wuxuu saldhigay ciidan oo dhan 680 saldhig ayna joogaan ku dhawaad 400,000 oo askari ku leeyahay in ka badan 70 dal oo 6 qaaradood ah. sidoo kale waa dalka hubka ugu badan dibadda u iibgeeya inta loo geeyo. marka laga hadlayo hodantinimada kala bar dadka milyaneerada ah ee dunida ku nool waa Mareykan. sidoo kale 8 ka mid ah 10 qof ee dunida ugu hodansanay waa Mareykan. in ka badan 700 oo bilyaneer ayuu leeyahay dalkaas, halka dalka ugu dhow ee Shiinuhu uu leeyahay 325 bilyan. Mareykanku waa dalka haysta kaydka dahabka ee ugu badan caalamka. dalka horumarkaas oo dhan gaaray ee dhan walba kaalinta koowaad kaga jira dadkiisu waa kala isir, diin, dhaqan, midab iyo af. 500 oo sano ka hor waqti laga joogo hadda ayaa dhulkaas la ogaaday in lagu noolaan karo. dadkii ugu horreeyay ee u haajiraa waxay ahaayeen reer Yurub. maantana iyaga ayaa ugu badan oo waa 73% tirada guud ee dadka Mareykanka. Mareykanku waa dalka qura ee laga helayo qoomiyad kasta oo caalamka ku nool. 37 qowmiyadood oo ka mid ah dadweynaha dalkaas ku nool ayaa dadkoodu milyan kor u dhaafaya mid kasta. waxaa lagu tilmaamaa dalka hal abuurka, ilbaxnimada, aqoonta, tiknoolajiyadda iyo madadaalada. magaalada New York oo kaliya 850 luuqadood ayaa lagaga hadlaa. ka hor inta aan hal askari ama hal markab oo Yurubyaan cagta soo dhigin dhulka Ameerika, waxa deganaa qowmiyado tiro badan oo asal ah, kuwaasoo qaarkood lahaayeen luuqado, dhaqanno iyo hab nololeedyo ka duwan kuwa kale. dadkaasi waxay dhulka u yaqaaneen magacyo gaar ah waxaanay u noolaayeen si degan. sanadkii 1492 Christopher Columbus waxa uu gaaray qaaradda Ameerika, laakiin wuxuu si qaldan u rumaysnaa inuu yimid Aasiya, gaar ahaan Hindiya. sidaa darteed wuxuu dadkii halkaas uu ku arkay ugu yeedhay Indian, waxaana dhulkaasi moodayay meel hore loo yaqaano, isagoo aan ogeyn inuu helay dhul cusub oo aanay reer Yurub hore u aqoon. socdaalkiisii waxa uu furay albaabkii gumaysiga reer Yurub, gaar ahaan Ingiriiska, Faransiiska iyo Isbaanishka. waxay bilaabeen dalalkaasi inay qabsadaan dhulal badan oo ay xoog kaga qaadeen dadkii loogu yimid dhulkaas. reer Yurub waxay aasaaseen gumaysiyo badan, waxaanay keeneen dad Afrikaan ah si ay ugu shaqaystaan oo gumaysigooda u waaro. dadkii ku noolaa 13 gobol ee Ingiriisku gumaysan jiray waxay ka gadoodeen cashuur dheeriya iyo cadaadis, kuwaasoo boqortooyada Ingiriis ku soo rogtay goboladaas. sanadkii 1776 waxay ku dhawaaqeen goboladaasi madax bannaan, waxaana bilowday dagaalkii xornimo-doonka ahaa. ugu dambeynna waxaa guulaystay dadkii deganaa goboladaas, waxaana dhashay dal loo bixiyay United States of America. kadib markii uu dalku ballaadhay, khilaaf weyn ayaa ka dhashay arrinta adoonsiga. gobolada koonfurta waxay doonayeen in adoonsigu sii jiro, gobolada waqooyiguna waa ay diidanaayeen arrintaas. intaa kadib waxaa bilaabmay dagaalkii sokeeye ee Mareykanka, waxaanu qarxay sanadkii 1861 kaasoo socday ilaa 1865. ugu dambeyn waqooyiga ayaa guulaystay, adoonsigana waxaa loo joojiyey si dhammaystiran. markii uu Mareykanku galay dagaalkii koowaad ee dunida, waxa uu kasbaday awood ciidan. kadib dagaalkii labaad waxa uu noqday dal saameyn weyn ku leh siyaasadda caalamka. intaa kadib Mareykanku wuxuu galay tartankii dagaalkii qaboobaa ee uu la galay Midowgii Soviyeeti. maanta Mareykanku waa dal laga helo fursado badan, waana dalka ay ka hana qaadeen shirkadaha ugu waaweyn caalamka sida Google, Apple, Amazon, Microsoft iyo Facebook. waa meeshii ugu horreysay
ee caalamka tiknolojiyadda ka soo baxdo. xorriyatul qowlku waa tiirka ugu adag ee dowladnimada, waana dowlad xamili kartaa rayga kuwa ka aragtida duwan. ma jirto ku jiqsi iyo carjuuqdhe, waa dowlad qof kasta uu aragtidiisa cabiri karo, waana sababta ilaa hadda ay u tahay dowladda ugu horreysa dunida.